Tani waa hooyo Bunni Cali Axmed waxay ku nooshahay mid ka mid ah kaamamka ku yaala degmada Gurceel oo lagu magacaabo Kaam Ujuuraan. Hooyo Bunni iyo reerkoodu waa qoys danyar ah oo la dala dhacaya shil uu geystay wiilkoodu. Baashi Cabdi Ibraahin waa wiilka geystay shilka, wuxuuna ka shaqaynayay meel lagu dhaqo baabuurta, halkaasuu ka soo dhicin jiray biilka qoyska. Baashi ayaa mid ka mid ah macaamiisha gaariga u dhaqayay ka qaatay gaarigiisa si uu xaafadda isaga iyo saaxiibkiis ay ugu quraac doontaan. Markay soo laabtanayo gaarigii mar qura rogmaday, halkaas ayaa Baashi iyo saaxiibkiis uu ka soo gaaray dhaawac xoog leh, waxaana la geeyay mid ka mid ah isbitaalada degmada Gurceel. Baashi oo isbitaalka yaala ayaa waxa uu tagay ninkii gaariga lahaa, halkaas ayuu durbaba ka soo kaxeeyay Baashi oo dhaawac culus ka soo gaaray dhabarka si ugu taxaabo xabsiga. Dadka degmada Gurceel ayaa ka bixiyay magtii gaariga si xabsiga looga soo daayo Baashi. Baashi iyo qoyskiisa ayaa hadda loo haystaa dhaawacii wiilka gaariga ka soo gaaray. Hooyo Bunni oo ah wiilka ayaydiis ayaa ka codsatay in muslimiinta iyo hay'adaha samafalka ay ka bixiyaan. Waxaan deganaa Gurceelan deganaa, wiila gaari ii dhaqaaya, gaarigii dhib ayuu kala kulmay, $2 uu ka dabadayay, $2 dhib weyn igu gaaray, dhibkaasna Ilaaha baa keenay. Ani iyo wiilkayga isbitaal ku jirno, asagana koombo ku jiro, ayaa faleebadii lagu gooyo isbitaal, waxaana lagu tuuray saldhigga, ani asagaba la isla xiray. culimadii iyo culimo diinkii iyo madaxdii iyo waxgaradkii ayaa noo gurmaday, baabuurkii ayaa liiga bixiyay. haddana dhiigaa la ii haystaa, wiilkaygana waa kas waa xanuunsan yahay, waxaan u hayana ma leh. waxaan ka codsanaa madaxdii iyo culimo diinkii iyo waxgaradkii iyo madaxdii, waxaan ka codsanaa in liiga bixiyo dhiigii la ii haysto. waxaan awoodana ma leh, anaana korsaday $2 uuna ka dabadayaya, waxaan haysanana ma leh, qaxootiyaan nahay. marka waxaan ka rabaa dadkii markii hore i caawiye, waxaan u diraa salaan. haddana waxaan ka codsanaa in dhibkii la ila qaybsado oo la iga caawiyo oo la iga diro oo wiilkiina la ii daawo. wiilkii hore la socda oo shirka la saarna oo asagana ka soo dabadayo oo saaxiib ay saaxiibnimo ma jirto, hadda dhib baa yimid. hadda dhibkii la ii haystaa. yarkana ma ahayn macnaa nin magaalada u dhashay, waa ana magaalada uma dhalanin, laakiin magaalada la iga caawiye. dad muslim oo alla ii bixiye, ani wiilkaygana saldhigga saasana laga soo saara. haddana waa xanuunsan yahay, daawona waa u rabaa. wax kastaba an la ii qabtaan rabaa, dalka iyo dibadda iyo macal madaxdii culimo diinkii wixii shalay ii qabtaan iyo ka si fiican inay ii qabtaan rabaa. Hooyo Bunni ayaa sheegtay in wiilka dhaawac ahaa loo qaadayo dalka Hindiya, halka kay ayayda u ahaydna isagoo dhaawac daran u yaalo guriga dhexdiisa. waa tan Hooyo Bunni oo ka hadlaysa arrintaasi. kirkina waa xanuunsan yahay, xamar u yaala, waxaa leeyahay lacag Hindiya lagu geeyeen. kaygana waa xanuunsan yahay, waa kas idinka baa u jeedaan. hadda miyuu kici karaa soo? maya mikici kara, waa xanuunsan yahay, waxna ma u awooday. buush ilbaab laan ahan degan, ilbaab haday waxaan ku samaystay ma haysti. Hooyo Bunni iyo qoyskeeda ayaa ah dadka barakac ahaan ku yimid degmada Gurceel, iyadoona dhammaan dadka ka codsatay muslimiinta ee daawanaya muuqaalkan lambarada shaashada ka muuqda ay ugu caawiyaan. waxay Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Filsan, Somali Cable TV, magaalada Dhuusamareeb.